وحنا يسكن انتي أسكر هي سراكيش ده كشاب ورك نزلنا إذا كافرتني السجلات قوتها طبعا ضيقة كافرتني السلاحات إذا ما قطعنا وهي الكوكب اللي دون ورنك عدوها دباتين شعب كعيا ورك قاعدين تجينا بديت كل دباتين شعب كأر ونمدي هراء ساكا دجال المدير السعودي كذب إذا ما قاعيا كوك عن سرية يقولها دجال كاس وهنا بديت كل بدي فرجويات يم الأشياء كسونا كاسي يلا ما كيد من الصور جيف فجأة مجال من بعد ورجويه والتعادل دجال بس سيدا كله كان ودي سكن دون يا رؤوس فرتمان جيران وخسارة سوق إذا ما قطعنا marka laga soo tago miyaano dhulka lagu aasaa way ka soo gaareen isnaawaafo abandulaha ururka afartan sagalaad xidiglan maxamed wali cabdullah oo ahaa sargaalkii hogaamiyay howlgalka iyo sidoo kale gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Arbac Ahmed Sheikh Arta ayaa warbaahinta qaranka faahfaahin ka siiyay khasaaraha dagaalkaas. bismillahir rahmanir rahim waxaan ka wadnay deegaanka baaraga ee magaalada baaraga 35 kilomitir deegaankaas oo ku dhumaysanay cadawga ummadda Soomaaliyeed oo goobtaas oo ay goob dadka ka dhibaateeyaan shacabka ee lacag baaq ku qaadaan farmeeshiniin xoolaha ka helay dadkeed yaan ka hormarnay saacad mar abaar ay heshin saac yaan markaa ka hormarnay dagaalka ku dhacay saac barna ka helay abaar saacad markaa helay ilaah uu guuleeyay cadawga meesha dad ballaaran ayaa ka soo gaaray waxaa laga isku dhintay askar iyo saraakiishii deegaanka shacabka oo rag nuzulina sida adarkaysan ba ninka ugu weyn aan qaaday deegaanka haystay oo shacabka aan nuzulka ah oo mid ka dhan keenay mid sarkaysan oo yaala xadidan horta muuqdo hubkan toosnada yaali qalabkan mid kalaba iyo hubsan mid kale oo ka soo furnay way wateen ilaa fadhigi marka annaga wax hadda khasaare ama soo gaarin inta aan ku guuleysanay hadaguna tira shacab ilaa 5 qof ayaa inta xaqiiqinay dhimasho inta dhaawac inta aan khasaaraha meesha inta uu ka sii badan laakiin inta waxaan xaqiiqinay waa 5 qof amiirka ugu weyn qofkii ciidanka wata sarkaalka weyn inta aan wax badan keenay arkaysan hubkay wateen macdaan weeye meesha waxay meel adow ay ka dhibaateeyaan oo shacabka Soomaaliyeed ka dhibaateeyaan dhibaatooyinka magaalada baaraga ay ka soo meelaan sidoo kale waxay ku sheegaan saka ama mataqaana xaway canshuuraad ku sheegaan oo kale mataqaana xaway dadka waxa jira shacabka xoolaha dadka baan mataqaana hor sida uga dhacay meesha leefadii aan ku soo guuleysan cadawga jabal ay ku soo galeen si fiican shacabku way degan yihiin waxa la yiraahdo si moral mataqaana diirada ciidanka xoogga ku soo dhaweeyeen marka ay mataqaana cadawga soo dhareeyay meesha degan mataqaana ciidamada nafsiga cadawga jabal ay khafad meedkeedii mataqaana ku eeteen kan xaqiijin anaguna oo soo in mataqaana xaalkan qabsanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka ka qaadayna oo sababta ugu xilligan qorax ay taagantaan ayaa ciidana u soo uqoleen inta shacabka ay inay badbaadin ay tahay saddex marka waxa way shacabka soo dhaweeyeen deegaanka hadda wax soo leeyahay cadawga jabkaas ay gaaray ilaa hadda inay deegaanka ku sugan waxaan leeyahay hadda dadka baa ka dhintay iyaga raacada oo soo dhibaateeyay aan isleeyahay taqaanada in la khaldo laga yaabo waxaan leeyahay marka hadda shacabka jilay wajahada internet ma sheegay marka la sheegay oo qoriyaha xaaba oo dad lagu sheegay markay baabaan ku kala sheegay ila dadka shacabka dhiigooda taqaanada iimaylkooda meesha u dhigan minna aan ay xurmaysan marka aysan jirin waxaa leeyahay dadkii u soo laabtay kuwa aan qabanay waa jiraan dal qabanay oo aan dilin cidii soo sheegay dadka ugu dileen kuwa aan qaban dal qabanay aan dilin waxaa leeyahay marka maalin iimaylkiina iyo taqaanada dhibaatada in kiina dhaawacmo la daryeelay in taqaanada aan biligi sheegay dhimatay in meesha aan sheegay cid kale iga faa'iideynaysa dalkii midii soo laabtay leenahay bismillah ilaahay ama iskale waa lagu guuleystay cadawgina hadee waxaa ka soo gaartay dhibaato iyo jabhad falkan waxaa laga soo qabtay hubkan hadda meesha yaallo oo caawiyo qoryana ka yahay qoryaha beekanka iyo qoryo kalabo dad mas'uuliin waa laga dilay oo sida arkeen hadda meydkooda ay aragteen wixii kalena waa kala farxadeen kolley eediyada dadka ka dhibaateyn jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed yaa ku sugan Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheere ee gobolka Gadow.